oo iyagaba intii badneed ka hadlay laakiin waxaan si yar dul taagayaa laba qodob oo isleey malaawili qaar midna waa laga hadlay midna lagama hadal waa ka koowaad waxa weeyaan horti marka u horeysa waxbarashada siyaasadii waxbarashada Soomaaliland lagu hagi lahaa ilaa hadda ma samaysna horti marka u horeysa waxaan soo jeedinayaa in siyaasadii waxbarashada Soomaaliland lagu hagi lahaa la helo oo la sameeyo way siyaasadda ayaa wax walba hagayso hogaaminaysa taa waan soo jeedinayaa xukuumadda iyo wasaaradaba waxaan kaloo ku raacsanahay xildhibaanada iga horeeyay farsamada gacanta waxaynu ognahay jaamacadaha iminka hadda iminka laga qalinjibiyay Booramo kale iyo Hargeysa kale labada jaamacadood ku yaala tira ku dhowba ka qalinjibisay Hargeysa waa kun iyo saayid Booramana 900 bay iyo saayid waliba kun bay ku dhoway waxaan soo jeedinayaa wasaaradda jaamacadaha laga qalinjibinayo in ay sida xildhibaanada iga horeeyay sheegeen in farsamo jaamacadeed la helo oo farsamo gacmeed oo dadka soo baxaya jaamacadaha ka qalinjibinaya ay noqdaan dad khibrad leh oo farsamo ku shaqeyn kara qodobka oo ku raacsan xildhibaanada in farsamada gacanta la helo waxbarashadeenu maanta marka loo eego marka inta kale halkeen wax ka soo bilownay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin meel fiican bay maraysaa ilaahay ay noo siyaadiyo taa waxaan iyadana subooraya waxbarashada quraanka in laga maartay ilmaha marka hadda dugsiga hoose la qorayo in quraanka imtixaan lagaga qaado oo lagu geliyo oo diinta lagu soo horeysiyo ilmaha 7 jir baa ilmaha waxbarashada loogu bilaabay markuu yar yahay marka barigii hore anigoo kale iyo waxaan ku galay iskuulka markaan dugsiga hoose la qorayay quraan baa la imtixaan lagaga qaaday oo iskuulka Riisba ayaan ka galay oo waxbarashada oo garaysa quraan baa imtixaan lagaga qaaday oo lagu qoray dugsiga hoose marka in quraanka lagu carruurta lagu qoro waa soo jeedinayaa sida xildhibaanada iga horeeyay qaarkood ay sheegeen waayo diinteen waxa weeyaan ilmaha in lagu ababiyo quraankana wax ka yaqaan markuu dugsiga galayo intaas baan ku soo koobaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi